wuxuuna dardargeliyay dhalintii da'ayarayd oo diinta iyo maadiga dac loo baraa ninkii danaynaya ubadkiisa waa u diraa oo doorkii waa u qaaday iskuulada reer Puntland. xafladan oo ay soo agaasimeen maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Maxamed Cawaale Liibaan ee magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid abaalmarin lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalimaha sare ka galay imtixaankii teeramka ee sanad dugsiyeedkan 2020-2021 waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada degmada Boosaaso bahda jaamacadaha gudoomiyaha mu'assasada Al-Minhaaj ee gobolka Bari waalidiin maamulka sare iyo macallimiinta dugsigan waxaana ugu horeynba xafladan iyo qiimaha ay leedahay ka sheekeeyay maamulaha iskoolkan Ustaad Maxamed Siciid Muumin Shabeele iyadoo uu hadalka uga dambeeyay Ustaad Siciid Sahal oo ka mid ah macallimiinta iskoolkan. waxaan u taaganahay mu'assaso munaasabad mug weyn leh munaasabadaas oo ah dhiirigelin arday ka gashay kaalmaha hore imtixaankii teeramka ahaa ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaan leeyahay ardaydaas hambaliyo mar koowaad ardayda hiishka ugu soo dhacday ee kaabiga u soo saadhay iyagana waxa leeyahay waad guulaysateen meel baa gaadheen hambaliyo guud ahaan ardaydii gudubtay imtixaanka waxaan leeyahay meel baad gaarteen qofba haniga himil uu lahaa arday walba meeshii uu rabay wuu gaaray laakiin wali waxba u dhiman waxa la rabaa inuu hore u socdo ardayda sharafta mudan kaalimaha hore soo gashay iyo dhammaan ardayda reer Maxamed Cawaale waxaan leeyahay waxay macallimiinta reer Maxamed Cawaale dhamaantood leeyihiin hambaliyo waxaan leeyahay qofku hadduu mar guulaysto waxa laga rabaa kaalinta inuu sii adkaysto ardayda kaalimaha hore soo gashay iyo ardayda soo dhawaata waxaan leeyahay hanii'an lakum marka ku xiga waxaan rabaa maadaama arday kaalimaha galeen iyo kaalintooda adkaystaan qofkii hadda aan kaalin galna waxa laga rabaa doorkan ku xiga inuu meeshan ka soo muuqdo mar badanna waa ku celceliyay waxaan rabaa cilmiga doonaysa waxa la yiraahdo sharaftaada ku xiran ina maalin kasta lagu yeero waalidkaad kor u qaado aduu kor u qaado ummadda muslimiinta kor u qaado macallimiintaada kor u qaado waxay ku xiran tahay waxa la yiraahdo sharaftaada. intaa kadibna waxa hadalka isaga dhameeyay bahda jaamacadaha waalidiin gudoomiyaha mu'assasada Al-Minhaaj qaybta gobolka Bari gabagabadeena waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Boosaaso Cabdullaahi Abshir Cadami anigoo ku hadlaya afka jaamacadda Badda Cas waxaan rabaa inaan si guud ugu mahadceliyo maamulka macallimiinta iyo ardada iskuulka Maxamed Cawaale dabcan taariikhda iyo inta uu furan yahay iskuulku waa waqti kooban laakiin dadaalka ay sameeyeen iyo miradhalkiisu waa mid aad loogu riyaaqay ana aad ugu faraxsanahay runtii in ardayga ugu sareeya top 10ka ay gabar tahay waana kaalin runtii gabdhaha aad u soo jiidasho hambaliyo ayaan leeyahay ka jaamacad ahaan jaamacadda Boosaaso iyo maantay ardada wax baranaysa wiilal iyo gabdho meel kasta oo la joogo jaamacadaha dugsiyada kulli maanta gabdhaha kaalimaha hore ku jira taasna waxa weeye hambaliyo ayaan leeyahay dadaalkiina muujiya ogaada oo noloshiina maantay baad waxaad barataan baa wuxuu idin yahay ilaa 50 sano 40 sano 30 sano inta ilaahay idin gaarsiiyo de waxa maanta barataan baa raasumaal idin ah oo berri aad ku shaqayn kartaan laakiin haddii aad maantay fadhidaan waliba gabdhuhu waa dadaal badan yihiin waalid baan ahay waa ka warhaya dadka ciyaarta iyo kubadda iyo hawsha ku jira waa wiilasha wiilalow dadaala idinka madaxweynaasha la idinka rabaa idinka wasiirada iyo howlaha u badan idinka mustaqbalka iyo ciyaaradaha iyo duliyaasha iyo adduunka horumar weyn idin sugaya idinka mas'uuliyad badan sugaysa waxa la rabaa sida gabdhuhu dadaalayaan in ay u dadaashaan oo idinka muuqato oo haddaan waalid nahay waalid oo dhan waa afkooda ku hadlayaa aan berrida idinku faano oo berri idin naahno waxaan u galay waa sameeyeen abaalkaygu waa noo gudeen abaal kaliya aan ka rabno waa inaad idinku wax barataan wax kale idin kama rabno haddaan wax yar ka tilmaamo mu'assasada Minhaaj
tababarada iyo barnaamijka ardayda ay u qabato waa ardayda ugu horeysa weey kaalimaha u horeeya xagga waqtiga ilaalintiisa markaan ardayda u yeerno kaalinta koowaad ayay ka ahaayeen hadda dowrooyinka u dambeeyay oo la qabtay qaar ka mid ah shahaadooyinkooda waa hayaa weli igama soo doonan shahaadada tababarka waxa lagu kala tagay oo waxa weeye lagu kala dheereeyay orod ma aha ee waa dadaal weeye runtii marka waxaan leeyahay ardayda noocaasa hambaliyo waxaan leeyahay dadaalka bartiina ka sii wada halkaana ka sii wada waa la tartamayaa oo dad iyo arday wiilal iyo gabdhaba leh baad gadaal u fiirinaysaan iyaguna hore inii soo fiirinaya oo raba inay waxa weeye inii soo gaaraanin marka inaguna dadaalka halkaa ka sii wada oo sii dadaala runtii way adag tahay in qimada la gaaro meesha ugu sarreysa in la gaaraa way adag tahay laakiin in la haysto oo waxa weeye lagu fara adayga ayaa ka sii adag marka waxaan leeyahay ardayda noocaasa dadaalka halkiinay ka sii wada maamulka iyo macallimiinta iyo wasaaradda waxbarashaduba wayna garab taagan tahay wayna dadaalka barteeda inay kala sii wadaysaa ugu dambeyntiina waxaa xafladda soo xidhay maamulaha guud ee iskoolada Maxamed Cawaale iyo Daarul Berri Imaan Yuusuf Maxamuud waxaan u hambalyeeynayaa ardaydii dadaashay ee dhexda xiratay ee waqtigooda ka faa'iideystay waxaan leeyahay hambaliyo waa dadaasheen insha Allah taala waxa aad leensiinayo oo dhiirigelinta ay wax weyn ma aha laakiin waxaan idin dareensiinaynaa inaan dadaalkeena jecel lahay inaan idin jecel lahay inaan rabno inaan halkaa ka sii ambaqaadaan oo sii dadaashaan oo ka sii fiicnaataan sidaas waxaan rajaynayaa insha Allah inay idin kordhin doono dadaal iyo nashaad inay idin kordhin doonto ardayda iyagu aan kaalimaha hore gelin waxaan leeyahay dadaala cid meeshu u cabiran tahay ma jirto qofkii dadaala wuu gaarayaa waxaan rabaa insha Allah taala inaad idinka sanadka dameeto iyo sanadka hadda imtixaanka finalkaaba qofna aanu ku qancin meesha uu joogo laakiin ardayda dadaashay waxaan rabaa in boosaska lagu qabsado oo si ay u dadaaleen loo dadaalo iyadoo gunaanadkiina abaalmarina la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha sare ka galay imtixaankii teeramka Cabdirasaaq Axmed Saciid Cabdirasaaq Dhagalibax Sahal Kaybal magaalada Boosaaso ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank